gudoomiyaha gobolka Daadmareer Jamaal Xuseen Hurre iyo maayirka degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse oo ay wehelinayaan isduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ayaa maanta kormeer ku soo maray mashruuc biyo xidh ama biyo qaybin ah oo ay hay'adda Agriculture Development Organization ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano ADO ay ka wado dooxa weyn ee tuulada Beerato Khalid Saahid Dirir waa madaxa mashruucan biyo qaybinta ama biyo xidhka ee hay'adda ADO waxaana uu mas'uuliyiintan maanta booqday uga warbixinayaa mashruucan iyo sida hawluhu u socdaan annagoo ah hay'adda ADO ee wadaniga waxaan halkan ka wadnay mashruuc biyo xidhisa biyahan sida aragtaba waxaan doonaynaa inaanu maarayno maamulno qaybtaas oo oomana oo sida runtii ah dooxo la beerto oo biyuhu tagi jireen oo ka soo jabeen oo ay dhinaca bari uga jabeen in doonay biyo intaan kala qaybno laba qaybood ka dhigno qaybina inay daantan bariga tagto oo ay biyihii geyso oo beeraha waraabiso qaybta kalena qaybta oomanta ay geyso shaqadu way socotaa waa shaqada ballaaran isduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Daadmareer Jamaal Deeq Maxamed iyo qaar ka mid ah iskaashatada beeralayda ah ee tuulada Beerato ayaa iyaguna ka warramay mashruucan iyo muhiimadda uu leeyahay beeralayda taasi oo ay sheegeen inay ka faa'iideysan doonaan maayirka degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse iyo badhsaabka gobolka Daadmareer Jamaal Xuseen Hurre ayaa iyaguna faahfaahin ka bixiyay mashruucan iyo faa'iidada uu leeyahay bulshada isla markaana hay'adda ADO ku amaanay waxqabadyada rasmiga ah ee ka hirgeliso deegaanada gobolka Daadmareer inaan soo boqono biyo xidheenka weyn oo loo leexinayo dooxada galbeed ee magaalada Beerato oo runtii 12 sano aan helin biyo waraabkii ay ku soo bixi lahaa daaga beertaan iskaashatooyinku runtii waxay noo muujinaysaa in maanta iskaashatada Beerato maamulka gobolka iyo hay'adda wadaniga ADO runtii ay iskarab taagan yihiin in laga fulinayo halkan way fulinayso ADO hay'adaas oo runtii hay'ad wadaniga oo aad iyo aad uga shaqeysay in gobolka laba mashruuc oo weyn ka wada in mashruucan waxa maalgelisay Finland oo runtii iyadana mahadcelinteeda leh taas oo ay ku soo hageen in abruuf gareeyeen wasaaradda beeraha iyo wasaaradda qorsheynta gabagabadiina waxay mas'uuliyiintani kulan la qaateen maamulka iyo bulshada reer Beerato isla markaana kala hadleen mashruucan biyo xidhka iyo sidii ay beeralaydu uga faa'iideysan lahaayeen Muuse Salebaan Maxamed shabakada caalamiga ee Oodweyne News magaalada Oodweyne